munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa maanta waxa ay ka dhacday xarunta jaamacadda badweynta India ee magaalada Muqdisho waxaana ujeedka munaasabadaasi uu ahaa mid ay ku qalan jibinayeen tiro arday ah wax ka baranayay kulliyadda maamulka iyo ganacsiga ee Indian Ocean University. munaasabadaasi ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno ka socday bangiyada Dahabshiil iyo Salaama Bank. samawade Maxamed Cali Daahir waa gudoomiyaha jaamacadda Indian Ocean waxa uuna hadal kooban ka jeediyay madasha munaasabadaasi isagoo ammaan u soo jeediyay ardaydii maanta qalan jibisay. program thesis kale waa program aan rabno in uu joogto noo noqdo oo ardayda jaamacadda ku soo bandhigaan waxyaabihii ay korsadeen 3 sano ee jaamacadda aadayeen. idinka le waxaan u maleynayaa waa inuu sugaysaa meeshaan insha Allah ilaahay diidaado marka waan aad u faraxsanahay sida quruxda badan oo loo soo bandhigay Caadil Axmed shaqadeeda waa ka gashay waa ogahay oo dib u taagnayd waa ka foqdaa u maleynayaa ما شاء الله كل جيل ولا فوق الضوء غفر مالتي سواي مركا عمبلي اللي هي إن شاء الله تدعو سبب قطين أو قطب ديسلينا نقطة عدنا وحد ديارنا رجل خميس تسوى كواك صار نكمل الجيدة gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaale oo isna goobta ka hadlay ayaa ardaydii qalin jibisay kula dardaarmay in waxyaabihii ay ka barteen jaamacadda Indian Ocean in ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale. qaar ka mid ah ardaydii maanta qalin jibisay ayaa dareenkooda aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan waxyaabihii ay barteen. Cabdi Umar Caadil oo ka mid ah ardaydii ku baran jirtay jaamacadda Indian Ocean kana qalin jibisay faculty of Business Administration. runtii maanta waa maalin weyn 12 September 2013 ay tahay maalin aad u weyn inkastoo ay tahay muxuu ahaa maalintii labaad ee aan qaato bachelor degree as ILF intaan marka aad mahadsantiin. magacayga Axmed Maxamed Maxamed waaye dareenkaygu maanta aad iyo aad ayuu u kacsan yahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay tahay maalin guuro aad u weyn oo xusuus taariikh ah ku yeelan doonto noloshayda dambe maadaama ay tahay maalintii aan ka qalin jabinayo jaamacadda difaacanayana buugayga waxaana ka baxay faculty-ga la yiraahdo Business Administration waxaana ka baxnay isla campus-kan aynu joogno jaamacadda la yiraahdo Indian Ocean University. dareenkayga aad u kacsan yahay aadna u faraxsanahay. magacaygu waa Axmed Maxamed Maxamuud thank you هذا قصلي كلسن TV magaalada Muqdisho.